بسم الله الرحمن الرحيم وأدو حان جوجنا صاد جدان وحتاجنا هاي مش كبلابنا جدك سكحرة حمر جوهر صابت أنو جوجنا حوي سيدي أنو قيمين لهين المشروع جدك اسمها جدك حمر جوهر سكحرة وحنا للصعدة وفتي كصعدة ودن قدر وقامنا يعني صندوق قدر شركة اسمها إشغال ليرة ودن كهولها جود sababta u yimaadeen waxa weeye inay fiiriyaan bal jidkan labada jid aan ku heshiinayna dhisaan ismahoodu noocu noqonayo xaaladda jidadka arrimaha markay fiiriyaan ka bacdina ay shaqadii si aan ugu talagalay haddii alla idmo bilaabanayso marka waa wada joognaa waa fiirinay waxyaalaha noo soo baxay informationkan u baahan oo dhan waa ka helay dhawaanna haddii alla idmo rabnaan dardargelno dhamaystirka iyo waxa la wixii naga aadan mashaariicdan hore u heshiinay marka waa ku mahadsan yihiin dhammaantood booqashadan ugu yimaadeen insha Allah waxaan rajayn doonaa dhawaan inaad aragtaan shaqada socota haddii alla idmo oo si fiican toos u hirgashay waxaan rajaynayaa wax alla wixii aan ku caawin karno danaha dawladda iyo dadka deegaanka Soomaaliyeed deegaanka degan dhamaantayo inaan iskaashano aan garab istaagno dadka shaqadeena la qabanayo wixii naga aadanna in waajibkeena ka gudano waxaan rajaynayaa haddii alla idmo marbixinahan maanta ka hadlay in wax badan naga caawinayaan mashruucan inuu sidaan rabnay وهرجل هالدالة هذه يوم مع سنتين السلام عليكم ورحمة الله. نحن هنا إن شاء الله لتدشين مشروع طريق أفغوي مقديشو أفغوي وكذلك إن شاء الله سوف يتم تدشين مشروع طريق مقديشو جوهر بإذن الله تعالى والتي يسعد دولة قطر أن تمول هذه المشروعين من خلال صندوق قطر للتنمية وسوف تقوم هيئة الأشغال العامة بدولة قطر بإدارة هذه المشروعين لصالح صندوق قطر للتنمية والحكومة الصومالية إن شاء الله. فعلى بركة الله بإذن الله تعالى نبتدي هذا المشروع والأعمال الهندسية سوف تبتدي إن شاء الله من اليوم وبإذن الله تعالى نتوقع أن يتم الانتهاء من هذه المشروعين في فترة إن شاء الله قصيرة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا الآن استكمال الاتفاقية اللي تم توقيعها بين هيئة الأشغال العامة وصندوق قطر للتنمية في إطار تطوير شوارع في جمهورية الصومال. احنا الآن موجودين على شارع واحد من الشوارع اللي سوف يتم تطويرها اللي هو اللي يربط ما بين مقديشو وما بين جوهر. طبعا الحق الاتفاقية اللي تم توقيعها سيتم تطوير هذا الشارع بشكل كامل ودور هيئة الأشغال العامة طبعا بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية تقديم الدعم الفني اللازم لكافة الأعمال الخاصة بتصميم وتنفيذ الشوارع هذه. احنا هاي في زيارة طبعا تفقدية ميدانية للشوارع هذه للاطلاع على أرض الواقع على حالة هذه الشوارع والأساليب اللي راح تستخدم في تطوير وتنفيذ هذا الشارع إن شاء الله. waxaan joognaa hadda jidka afgooye meeluu ka bilaabanayay magaalada muqdisho banaankeeda saad u jeedaan waxa wada soconaa wafti ka socda wadan qadar oo isugu jira injineero iyo safiirkii iyo sanduuqa qadar ka socda sababtan halka u joognaan waxa weeye inaan bilowno mashruucii qaybtiisa hore oo hay jidka inaan nimaano injineeradii la keeno iyo shaqada si loo qaban lahaa hadda u jeedaan waxaan la fiirinayay dhulka siduu yahay iyo sidii wax loo dhisi lahaa waxaan rajaynayaa haddii alla idmo inaan maanta halkan waxaan ka helo macluumaad ah naga caawiyaan inaan shaqadii dardar gelino haddii alla idmo injineeradana sababtaas u yimaadeen waan dadkii mas'uulka ahaa inay jidka dhisaan haddii alla idmo insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan hawshan soo dhaqsaab u soo gabagabayno waxaan tegaynaa mar dhow jidka dhinaca Jowhar isagana saasoo kale aan rabnaa inaan bilowno wixii mataqaanaa macluumaad u baahan ka soo ururino halkaas shaqada u bilaabato shaqada loo dardar geliyo